السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وناكسن كسو لوادا بوغا أوروركا xoojinta qaranimada Somaliland oo aanu alaaba idinku soo gudbino barnaamijyo kala duwan oo la xiriira horumarinta qaranimada Somaliland iyo waliba xoojinta iyo difaaca qaranka. Daawadayaal intiina lagu xiran waad ku mahadsantihiin sida aad noola socotaan. Haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe saar fura gambaleelka si aad markaas u hesho macluumaadkan halkan ku baahino. ku soo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijyo taxana ah oo aanu idinku soo gudbin jirnay sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya iyo Somaliland israacoodii 1960kii laga soo bilaabo iyadoo taariikho kala duwan oo kuwaasi ka horeeyay idin soo gudbinay. barnaamijkanina waxa aanu ku eegi doonaa qayb xiiso leh oo ku saabsan sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya iyadoo oo aanu ku soo qaadan doono dhacdooyin cajiib ah oo markaasi ay kaga bogan doontaan waxyaabo badan oo aydan ogeyn oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya. waxaanu barnaamijkani noqon doonaa mid taxane ah oo aanu idinku soo gudbin doono dhowr arrimood oo la xiriira calanka Soomaaliya, astaanta qaranka Soomaaliya iyo waliba dastuurka Soomaaliya ee xataa kuwii jiray 1960kii markii israacu dhacay ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay Somaliland iyo Soomaaliya samaysteen. mawduucan oo ah qaybtii koowaad ee barnaamijkan taxanaha ahna waxaynu ku soo qaadan doonaa halka uu asal ahaan ka soo jeedo calanka Soomaaliya ee buluuga ah ee isagu dhexda ku leh xidigta iyadoo oo aynu ku naaqash doono ama aynu kaga falanqoon doono halka uu calankaasi ka yimi ciddii samaysay iyo waliba cadaymo dhab ah oo aanu markaasi idinkula wadaagi doono barnaamijkani. haddaba warbixinta barnaamijkanina waxa ay ku bilaamaysaa sida tani. markasta oo la soo qaado magaca Soomaaliya waxa qulay ee maskaxdaada ku soo dhacaya ama aad sawiraysaa waa wadan fashilmay oo ay qalalaasa siyaasadeed colaado sakeeye qulgoynta dadka qubashada dhiigga rayidka aan waxba galabsan qaxarka iyo saboolnimada hoy u ahaa in ka badan 40 sannadood haatana halis ugu jira in uu mar kale u hayaamo haadaantii ay beesha caalamku ka soo saartay ee lagu soo yabyabay nidaamka hadda ka jira oo aan marna caga adag ku istaagin. tani waa heybta loo yaqaano Soomaaliya. hadda kuma jirto Somaliland oo waqtigii israaca labada dal oo la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya hase yeeshee laga soo bilaabo 1991kii ahayd dawlad ka madax bannaan jamhuuriyaddii burburtay ee Soomaaliya. israaca Somaliland iyo Soomaaliya ee 1991kii meesha ka baxay ujeedooyinkii ay u samaysteen labada gobol ee Hargeysa iyo Muqdisho waxa aasaas u ahaa uguna muhiimsanaa waxyaabihii ay labada dhinac hilowga u qabeen sidii loo heli lahaa iyaguna hormood ugu noqon lahaayeen dhalashada jamhuuriyad Soomaaliyeed oo ka kooban 5 gobol ee dhulka Soomaalida loo qurbay waqtigii ay gumaystayaasha reer galbeedku qaybsadeen qaaradda Afrika. hase ahaatee himiladaasi waxay noqotay dhicis calool ku baktiyey oo lagu hongoobay kadib markii ay Soomaaliya qalluucisay curintii israaca labada dhinac sidii aynu kaga soo hadalnay ama si aynu ku soo qaadanay barnaamijyadeennii hore ee aanu halkan idinku soo gudbinay. haddaba aynu soo noqonna mawduuceena calanka ka samaysan marada buluuga ah ee qarni ku dhawaadkii la soo dhaafay ka dhex taagnaa Muqdisho iyo gobollada kale ee laga maamulo ee Soomaaliya. dooda ka taagan halka uu asalkiisii hore ka yimi ciddii samaysay in uu ahaa calan markii ugu horreysay Soomaaliya loo tolay oo ay adduunka aragtidiisu markaasi ugu horreysay sababta loo doortay midabka shabaha sumadda hay'adda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo isuudiimo kaleba waxay ahayd sheeko ay hadalhaynteedu bulshada Soomaalida dhexdeeda soo taraysay 10kii sannadood ee u dambeeyay. in ay dadka xogaalka ay runta ka sheegaan wajigabax iyo shaki ku abuurayso jiilka ku kacaamay isaga oo calankaasi ka dulbabanaya ciidda dalkooda. inkasta oo ay jiraan ashqaas iyo afraad Soomaali ah oo si uun u sheegta inay calanka iyo astaanta qaranka Soomaaliya iyagu ay sameeyeen haddana waxaa jira xaqiiqo aanay cidina dafiri karin daahna saari karin oo tilmaamaysa halka uu calanka buluuga ah ee xidigta cad ee 5 gees leh asalkiisii ka soo jeedo iyo cidda iska lahayd taasoo marka laga tago ismariwaaga Soomaalida dhex yaala taariikhyahanada iyo wax aqoonka caalamkuba ka wada dheragsan yahay. shaki iyo muran la'aan markii taariikhda dib loo raacay waxaa la ogaaday in calanka buluuga ah ee xidigta cad ee 5 gees leh dhexda ku leh ay lahaan jirtay mid ka mid ah dawladihii ka dhisnaa dalka Mareykanka 200 oo sannadood ka hor. sida ku cada bugaga taariikhda lagu kaydiyo ee caalamka jamhuuriyaddii galbeedka gobolka Florida ayaa calan ka dhigatay sanadkii 1810kii waslad maro ah oo dhexda ku leh sidan calanka Soomaaliya xidig cad oo 5 gees leh. waqtigaana waxaa laga joogaa 211 sannadood. sidoo kale waxa uu calankaasi dul sugnaa
dowladdii xorta ahayd ee galbeedka Florida intii u dhaxaysay 23 Sebtembar ilaa 6 Disembar ee isla sanadkaasi 1910 iyada oo markii dambana astaan ama calaamad uu noqday koonfurtii Mareykanka oo dhan sanadihii 1860 ilaa 1861 waana kan calanku iyada oo ay ku xardhan tahay dushiisa ciddii lahayd iyo sheekadiisa oo dhammaystirani lahaanshiyaha calankan ee gobolka Mareykanka ka tirsanaa waxa kale oo caddeyn u ah qaar ka mid ah heesihii wadaniga ahaa ee ay fanaaniintii dowladdaasi u sameeyeen ammaanta calankan waxaana ka mid ahaa heesta Debonia Blue Flag oo uu alifay heesaagii la odhan jiray McCarthy. Here's to our Confederacy, strong we are and brave. Like patriots of old, we'll fight our heritage to save. And rather than submit to shame, to die we would prefer. So cheer for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. heesta Debonia Blue Flag waa heestii calanka buluugga ah ee 200 oo sannadood ka horreysay heesta qoloba calankeedu waa cayn iyo heeso kale oo ay walaalaha Hargeysa waa kooxdii fanka ee u sameeyeen 1960 markii xornimada la qaatay dabaaldegyadii xornimada. حردا كليغا هدو ردي أدعي جسدي داحا النقوي وهجاج daawadayaal barnaamijkaana intaasaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan naga xasuusinaa inaanu qaybta labaad idinku soo gudbin doono halka ay astaanta Soomaaliya ee ilaa imika jirta ay ka soo jeedo ama laga soo dheegtay ciddii u samaysay markaasi Soomaaliya iyo waliba arrinta dastuurka Soomaaliya ee 1961 foodka loo qaaday ee ay Soomaaliland ka codaysay oo aanu isagana idin soo gudbin doono ciddii samaysay iyo qaabkii Soomaaliya lagu sameeyay markaasi barnaamijkan waxa qayb ka qaatay diyaarintiisa ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland anigoo Salmaan Cabdi Cali ayaa idin la socodsiinayay tan iyo inta barnaamijyada kale isugu iman doono nabadgelyo.